halkani waa beerta duuceysana oo kamid ah beeraha dalxiiska ee degmada Gurceel waxaa iskugu soo baxay boqolaal dhalinyaro ah si uu u weynayaan xuska 26 Juun oo ah markii ay gobolada waqooyi ee xornimada ka qaateen gumaystiga Ingiriiska. dhalinyaradan oo wajiyadooda ay ka muuqatay farxad weyn oo la hadlay warbaahinta ayaa Soomaali weyn meel kasta oo joogta u rajeeyay guul iyo gobonimo. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. galabta waxaan ku suganahay beerta duuceysana oo kamid ah beeraha dalxiiska ee Gurceel. waxaan xusaynaa sida u jeedinba anaga asxaab badan oo qaali ah oo galabta beerta ku sugan 26 Juun oo ahayd markii gobolada waqooyi ee xornimada ka qaateen dawladda gumaysiga Ingiriiska. waxaad sida aad ogtiin sanad walba waxa la xusaa 26 Juun ilaa 27 Juun ilaa 1 Luulyo. waxaan galabta sanadkan waxay ugu duwan tahay sanadkan sanad ka dambeeya waa ka sii farxad badan tahay dadku soo badanayaan. waxaad arkaysaa qaybo badan kamid ah magaalada oo sawirada loo galay sida duuceysana iyo Beder. waxaan leeyahay asxaabta waxa joognaa maanta beerta duuceysana waxaan soo dhaweynaa dadkan quruxda badan oo jeedin iyo anaga calankii waxa aan ku ranahay waxa waa 26 Juun waxaan leenahay hambali 26 Juun. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. maanta waxa joognaa beerta duuceysana waxaan baldegaynaa 26 Juun ilaa 1 Luulyo waa maalinta ay Soomaaliya xornimada Ingiriiska qaadatay. marka maanta farxadeena ma soo koobi karo. maanta aad iyo aad waxa uu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xafladda sanad guurada Soomaaliya oo maanta ku beegneed runtii Gurceel lama soo koobi karo sanadkan sanadka hore isku mid ma wax badan ayayna kala bedel yihiin. marka beerta duuceysana maanta la joogaa xaflad dadka dareenkooda la soo koobi karo. aad ugu faraxsanahay maalmaha xorriyadda ay kamid tahay degmada Gurceel aad lagu dabaaldegaa sida arkaysiinba waxaan joogaa beerta duuceysana. Axmed Farax Maxamed, SMS TV, Gurceel.